السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لها يوجد اليوتيوب كي سود بعد ولاشين عاشر لذن عاو محيدي ودولاشين وحان آد وقح ماذي قبدي سفيه تسمي هيد أيا نينكي أولا شيء جاي أيضا وقبي أمو ولها أنا ما قبل لها وأكتهين وحو شكلي سكوت لماتي عيبتي أسوي كسو هورسد gabadhan naag inay gabadha hadda kor soo fariisto waxaa jirto ay dhahday gabadhaas xoog baa lagu haystaa way afduuban tahay ninkaasaa lacag ku qaadanayay abuse bay ku jirtaa gacantiisay ku jirtaa abood ma lahan waa la haysto qof la haysta waa gabadha wayna u afduuban tahay 2 sano ee u afduubneed gabadhii lahayd hadalkeedii caawa wax badan horta waxaa la ilaahay ceebteen ha asturo iyo ceeb muslimiin allah astura allaha allagu duceystaa waxaa waaye waxaa 9 bilood ceebta ilaahay asturo maalinta wanaad kuguma daraayo qaladkii uu asaga galay oo gabadha uu ku abuse gareynayay oo xoog ugu haystay ayaa videogii la soo dhigay adduunyo maxaa aragti ku laabanal adduunyada waxaan la arkay waji ilaahay waay wax kastoo dadkay soo maraysaa laakiin baryahan waxay soo badatay aad u soo badatay waxay tahay gabdhihii Soomaaliyeed in sharaftooda lagu ciyaaro ama rakaata la gashto oo maalinba video yar inta laga soo duubo social media la keeno ila daawada waxa meesha ka dhacay وصفيه تصمو نين ركاتيستي اما بستولد كو هايو او فيديو نكدو باي وصور ربا كدغان ميل دور شفتو من كان صار في سوق قلت ميل كان صار واحد بعدين ثا عد اسلام ور كويسه مش تصوع ساقا دمرتا كو بريوم لا علاقاته ايا قف اسلام كو غني والله الهي وتجي قف اسلام كو غني ودك ديانا كو بدويا ملا مويان سموي كون لا بقى بريس هي باسه هذا سبحان الله حد يقول لك سيدي قوم درعك طول من لاش halkay joogtaa uu dhahay markaas xilad ma garanaa meeshan joogad inay duur tahay islaam ور كويسه مش تصوع ساقا دمرتا كو بريوم لا علاقاته ايا قف اسلام كو غني والله الهي وتجي قف اسلام afduub caadi uu gabadha ku sameeyay ودك ديانا بدويا ملا مويان waxaana nin waa la leeyahay لا بقى بريس هي باسه هذا ساق ماشي كان صوته جوت ها ابو سوق لا يا ابو سوق ابو لا انا سوق مش شفت من كان صوته iga duubnay ka daayay هذا واحد بعدين ثا عد اسلام ور كويسه مش تصوع ساقا دمرتا كو بريوم لا علاقاته ايا قف اسلام كو غني والله الهي وتجي قف اسلام كو غني ودك ديانا كو بدويا ملا مويان سموي كون لا بقى بريس هي باسه هذا ساق ماشي كان صوته جوت ها حد يقول لك سيدي قوم درعك طول من لاش waad aragteen saa u malaynayo marka waxaan camal adduunka nala joogo oo abood ku faanayo oo gabar asaga qabay ama gabar asaga xiriir la lahaa oo saan u galay kaas rag ma la dhihi karaa haddee ahaan leed gabar oo asaga weligeed ma dhicin social media wuxuu noqday baryahan gabdhihii Soomaaliyeed in lagu abuse gareeyo oo rikaato lagu sameeyo oo video maalinta kale Soomaali inta xumeed oo herbaadiyaasha ahaa oo waxba ogeen ayaa ku soo batay oo social media bartay
dhaqankii Soomaaliyeed iyo sharaftii iyo qiimo lagu ilaalinay diintii oo sharafta gabdhaha lagu ilaalinay waa la iloobayo waxaa laga dhigtay meel public ah oo social media gabdhaha Soomaaliyeed lagu sharaftooda lagu dilay markaan ilaahay rabbi raxmaanka ah baawarka gabadha maanta u sheegatay ilaahay kugu iqaabi karaa wuuna ka jari karaa markaan allah ilaahay rabbi raxmaanka xaqeeda gabadhan sharafteed wad ku ciyaartay waa bahdishay saarta ka dhigatay awood baad u isticmaashay markaas adigoo hadda magaciisa way kula dagaali kartaa gacan way ku qaadi kartaa waa iska ka cilin lahayd laakiin waxay muuqataa in bistoolad aad ku haysido aad dili karto meesha ugu taqaso aad dili karto meesha nafteeda ay ku weyn karto because power sheegatay waxa dhahay hadda hadaan ku dilo on meeshan kugu gowraca cid ku ogaanaysa malaha yes waa sameyn kartay waa dili kartay laakiin tan alla xaqiis in laga dhimanayo xisaabta ku darso gabadhaas ay ku nooshahay tii alla xaqiis Safiya Tusmo maanta waxay ku badbaaday alla xaqiisa saacadeeda wax ka dhinaa wuxuu rabo uu ku sameyn karay markuu videos ka duubay soo rabo uu ka dhigi karaa laakiin hadda dhibaatada kale ay u geystay on la ogeyn yaa og cid og ma lahan markaan gabdhaha qaar ama ragga qaar oo ninkaas u hiilinay gabadhan dhibaatada u geystay oo shalay garab siinay wala idinkana dhibaatada geeska waa idin haysataa because waa la qaybsateen allana idinka jaasinaya xaqeena allah ilaahay waxaan kaaga baray Safiya Tusmoy inuu xaqaada ilaahay ku soo berberiyo hadayba soo bilowday sharaftiisa inuu sharaftaada ku ciyaar meeshu ka raadina asaa sharaftiisa dhulku la gala maalintaas video ka duubay social media inuu kugu rakaatay ahayd laakiin asaa sharaftiisa ku dhamaanaysa ninkan xaqaada ilaahay ku soo dhiciyo kolay xaqaada waa la duugi waa la dabool waa la dafiri marka rabbiga raxmaanka waxba kama qarsano waxaan ku leeyahay walaashay hore u sii soco waliga ha u aabayeel inaad ku nooshahay ilaahay xaqiisa badbaadadii alla xaqiisa inaad ku badbaaday ayaa muuqato asagana ceebtu ku ceeban lahaa maanta asaa ceebtiisa banaanka imaaday wiilal badan oo wanaagsan oo Soomaali ka dhalatay ayaa garabkaada taagan gabdho wanaagsan oo Soomaali ka dhasheen garabkaada taagan kaligaan matid inkastoo gabdhihii Soomaaliyeed xabad ayaa loo soo daadinayo oo sharaftooda in lagu ciyaar raadinayo kii u dhawaa ayaa sharafteeda inuu ku ciyaara isku dayaya marka ragga Soomaaliyeed xaq ilaahay inuu soo tuso ilaahay uga baryeena ragga Soomaaliyeed qaar dadka qaar maahina wiilasha Soomaaliyeed qaar badan oo ku xumaaday oo aad uga xun ayaa jirto gabdhaha Soomaaliyeed in lagu tuntraali ka ahayn inta xunna ilaahay xaq inuu soo tuso sharafta gabadha qiimaha ee leedahay ilaahay soo tuso ilaahay uga baryeena insha Allah السلام عليكم.